qaladaad raggu sameeyaan guurka bilowgiisa iska jir arrimahan. Marka nolosha guurka bilaabato, rag badan waxay u malaynayaan in jacaylkii iyo farxaddii arooska ay mar walba sidaa ahaa doonto. Laakiin dhab ahaantii, bilowga guurka waa xilli aad muhiim u ah oo lagu dhisaayo ama lagu burburin karo mustaqbalka qoyska. Qaladaadka yaryar oo aan muhiim ahayn, weliba aan u muuqan kuwo muhiim ah, waxay sababi karaan dhibaatooyin waaweyn haddii aan si feejigan loo fahmin. Sidaa darteed, maanta waxaan ka hadlaynaa qaladaad raggu sameeyaan guurka bilowgiisa iyo sida looga fogaado. Bilowga guurka waa xilli la isbaranayo, la isku fahmayo, sidoo kalena la isla qabsanayo, oo mararka qaar muran yaryar iyo niyad-jab yar ayaa dhici kara. Rag badan waxaa ku dhaca qalad ah in ay u maleeyaan in guurku yahay fursad ay ku maamulaan gabadha, halkii ay u arki lahaayeen inuu yahay nolosha labada qof, in ay si siman u dhisaan, inay si siman isu fahmaan. Meesha ay ka arki lahaayeen in ragga qaar ay u maleeyaan in ay guurku yahay fursad ay wax iyagu ku maamulaan. Mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn waa in ninku uu damco inuu ismuujiyo sida qof awood badan ama hadal adag, isagoo aaminsan in gabadhu ay u baahan tahay nin adag. Laakiin dhab ahaantii, haweeneydu waxay rabtaa nabad, faham iyo xushmad. Ma ahan in ay rabto nin ay ka cabsato, nin cadaadis ku hayo. Waxaa kaloo jira ragga guurka bilowgiisa inay ku mashquulaan shaqo, saaxiib ama telefoon, iyagoo hilmaama in xaaskoodu u baahan tahay dareen, waqti iyo hadal dabacsan. Qof kasta wuxuu jecel yahay in laga dhagaysto, gaar ahaan marka uu nolosha qof kale la wadaagayo. Marka ninku ka maqnaado dhinaca dareenka, qalbiga, waxaa si tartiib ah u dhacaya go'aan nafeed oo ku yimaada gabadha. Waxay dareemaysaa kelinimo iyadoo la joogta qofka ay nolosha la wadaagaysay, iyadoo weliba xaas ah guriga joogta ayay haddana kelinimo dareemaysaa. Qaladka kale ee u baahan in ninku waa ka mid ah raggu in ninku uu filayo in xaasku ay si buuxda u fahanto isaga, xitaa isagoo aan waxba u sheegin. Guurku ma aha meel maskaxda lagu akhriyo, waa meel isfaham iyo isqancin joogto ah looga baahan yahay. Hadalka wanaagsan, dulqaadka iyo fahamka waa saddexda tiir ee ugu muhiimsan guurka bilowgiisa. Waxaa kaloo jira ragga guurka bilowgiisa inay ku mashquulaan inay muujiyaan cidda saxda ah, halka ay diiradda saar lahaayeen xalinta khilaafaadka si degan. Markasta oo aad isku daydo inaad dood kasta guul ku dhamayso, inaad dood kasta adiga ku guulaysato, waxaad luminaysaa kalgacaylka gabadha ay ku haysay. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaya isqadarintii labada lamaane ay isku hayeen. Xusuusnow, guurku ma ahan tartan iyo meel aad isku muujiso, waa meel la isku kaashado, labada dhinacna ay isku fahmaan. Qaladka kale ee ragga qaarkood sameeyaan waa inay isbedel degdeg ah filayaan in xaaskoodu ay noqoto qof buuxisa rabitaankooda oo dhan. Laakiin qof walba wuxuu leeyahay dabeecad, taariikh iyo dareen u gaara. Guurka wanaagsan waa midka la isku barto, weliba la isla qabsado qofka kale, ma ahan mid lagu bixiyo amaro iyo isbedel. Ha sugin markaa isbedel degdeg ah. Sidoo kale, ha sugin xaaskaagu inay buuxiso wax kasta oo qalbigaaga kusoo dhacay. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in xiriirka jamaaca bilowgiisa uu yahay meel lagu dhisaayo kalsooni iyo isku xirnaan. Balse haddii ninku uu isticmaalo keliya inuu naftiisa ugu qanciyo, waxaa dhaca dareen gooni ah taasoo xaaska ku yimaada. U arkin kaliya gogosha in loo baahan yahay kaliya in dareenka kaliya lagu guto, u arag meel xiriirka wanaagsan lagu sii xoojiyo. Waxaa muhiim ah in la fahmo in jacaylka dhabta ah uu yahay isku darka jirka, maskaxda iyo qalbiga. Saddexdaas marka ay iswaafaqaan labada qof, jacayl dhab ayaa yimaada. Laakiin haddii jirka kale uu ka mashquulo, maskaxda kale ay ka mashquulso, qalbiga kale uu kasii jeedo, jacaylka dhabta ah meesha ayuu ka baxaya. Waxaa kaloo jira rag kale oo qaladkoodu yahay in ay qariyaan dareenkooda iyo dhibaatooyinka ay dareemaan, iyagoo aaminsan in ninka uusan muujin dareenkiisa, in uusan hadlin, in uu u arko daciifnimo. Laakiin runaantii, qofka muujin kara dareenkiisa si xushmad leh waa qof gudaha ka xoogan. Xaaskaagu waxay rabtaa inay aragto inaad tahay nin run badan, nin waxa uu qabo sheegta. Marka haddii aad rabto guur waara, faham in bilowgu uu yahay tijaabada ugu weyn. Samee dulqaad, baro inaad maqasho saaxiibtaada, ha noqon mid ku degdega ama xanaaqa si fudud. Ha iska indhatirin qaladaadka yaryar, hana ka dhigin xaaskaada qof la cadaadiyo. Jacaylka dhabta wuxuu ka dhashaa marka labada qof ay si daacad ah u dadaalaan. Iska jir qaladaadkan, hana u ogolaan in bilowga guurkaaga uu noqdo sababta uu u burburo jacaylkii aad ku riyoonaysay.